السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalacan News Channel. Daawadayaal meel kasta joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. Xubinteena waxaan ku soo qaadaynaa dhacdooyinka la yaabka leh. Xubintaan ku soo qaadanayno waxa ay kala yihiin aabe gabadhiisa u dilay cunto ay ka cuntay iyo sidoo kale wiil isna aabiis u dilay koob caana oo ka cabay. aabe u dhashay dalka Uganda oo lagu magacaabo Isma Sisanga ayaa la sheegay inuu dilay gabadhiisa oo ka cuntay cunto uu meel dhigtay oo ka soo qaatay xaflad. aabahaasi oo degan tuulada Kasawa ee degmada Mukomo ee dalkaasi ayaa waxa uu ku xiran yahay saldhigga booliska ee Nagalama isagoo ku eedeysan inuu habeenkii hadda ee la soo dhaafay uu dilay gabadhiisa oo la oran jiray Salama Mazanga oo 10 jir ahayd. ku-xigeenka afhayeenka booliska dhexe ee magaalada Kampala Luke Awayegiri waxa uu sheegay inay hayaan warbixin hordhac oo muujinaysa inuu aabaha markii hore garaacay labadiisa wiil koor intuusan garaacis nafta kaga qaadin gabadhiisa oo ku eeday inay ka cuntay cunto uu meel dhigtay. gabadha ayaa la sheegay inay carartay kadib markii aragtay inuu aabaheed garaacayo walaalaheeda ka yaryar balse aabaheeda iyada ceersaday kuna dhuftay jug ayuu geeriyootay. dadka dariska ayaa waxay qireen inay gabadhaas ku geerisay goobtii aabaheeda ku garaacay. dhinaca kale dalka Kenya waxaa la soo wariyay inuu nin 60 jir ah uu dilay aabiis kadib markii uu ka cabay koob caana. boolisku waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen eedeysanaasi oo lagu magacaabo Filemono Kibangeti Negatichi oo ka soo jeeda degmada Korongo ee gobolka Kericho ee dalkaasi. ninkaasi waxa uu dilay aabiis oo la oran jiray Samuel Kibangeti Rotich kadib markii koob caana uu ka cabay xilli saqdhaxa ee habeenkii hadda ee la soo dhaafay. eedeysanaha waxa uu ka carooday koobka caanaha ee waalidkiis cabay kadibna wuxuu aabiis madaxa kaga garaacay alwaax uu ka soo jabsaday miis guriga yaalay. odayga waxaa loo la caaray isbitaalka lagu magacaabo AIC Mission Hospital Letian wuxuuna doornimadii shalay sanadeed u geeriyooday dhaawacyadii loo geystay. xaaska odaygaas ka geeriyooday ayaa u sheegtay booliska in uu wiilkaasi uu dilay aabiis waxayna booliska soo xireen wiilka aabiis u dilay koob caana oo ka cabay. daawadayaal xubinteeni la yaabkana waa nagintaa waxaad kala socoteen Daalacan News Channel waana ku mahadsantihiin daawashadiina.